الله الرحمن الرحيم golaha wasiirada golaha baarlamaanka iyo golayaasha kale dawladda xubnaha ka jooga hay'adda wadooyinka Puntland iyo shirkadda CCECC iyo dhammaan governorka iyo maamulada kale dadka halka jooga dawladda guud ahaan runtii maanta waxay noo tahay farxad in uu bilaabanayo mashruuca boosaaso garowe laascaanood oo aan rajaynayno intii ka go'go'day in lagu sameyn doono dayactir mug weyn oo aan rajaynayno in ay wadadu ay maaragtay sidii si ku dhow ay ku soo noqoto sida aan rajada ka qabno runtii mashruucaas waa mashaariicda sida la sheegay waxba ka noqon maayo halbowlayaasha oo ah dhaqaalaha dalka kaabayaasha ugu muhiimsanna ah waxa kale oo ogtihiin wadadii garowe gaalkacayo iyadana dabcan heerkan ka hooseeya ayay joogtaa oo ku saabsan gabi ahaan inay meesha ka baxdayba mashruucaas wuxuu u qaybsanaa laba fayska koowaad oo hore u socday oo hakadka galay oo ilaa iyo jalam xarfa ahaa waxaan rajaynaynaa isagana inuu si dhaqso u bilowdo waxa kale oo jira mashruuc isna galow jalam ah inta kaleeta ah marka EU-da iyo African Development Bank ayaa labadaba bixin doona kharashaadkooda waxaan rajaynaynaa dhawaan inta uu sanadkan dhammaan in tandarkiisa isna u bixi doono middan kaleeto aan sheegnay hay'ado ilaa hadda gacan naga siiyey wili ma jiraan waxa uu ilaa hadda loo hayaa lacag dawladda Imaaraadka ku deeqday oo 2 milyan iyo dalka China aan ka rajaynayno inay qayb ka qaataan iyo dawladda Puntland dabcan waa isku tashi dawladda Puntland ay qaadatay cid kasta oo wax uga heshana ay ka rajaynayso inay gacan ka hesho laakiin aysan sugin waxa maqan ay go'aan wax ku qaadatay inay heshiiskaas gasho oo shaqada la qabto waxaan rajaynayaa shaqo qurux badan iyo hay'adda wadooyinka iyo wasaaradda howlaha guudna ay la socon doonaan habka shaqada habsami socodka shaqadu socon doonto waxaan rajaynaynaa in howlahan ay guul noogu dhamaadaan aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi